السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير تسكسوا الله بشر وعن ويب سايت كيني وجوهري أنا واستعمالنا HTML5 sida dalka ku artaan si aad u qortid HTML ama aad u coding garisid ama aad u design garisid waxaad u baahan tahay wax loo yaqaano tifaftirna waan kasoo hadalnay waa editor waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano Visual Studio Code sidoo kale waxaad u baahan tahay wax loo yaqaano browser anagu waxaan isticmaali doonaa Firefox, Chrome baa jiro, Safari baa jiro, Microsoft Edge ama Internet Explorer hadba waxaad haysatid waa okay. haddaba waxaa sidoo kale waa inaad fahansanaataa yani keydinta filesyada. anaga filekiina waxaan ku keydin doonaa wax loo yaqaano index.html tag. haddaba waxaa la isticmaalayo si loo qoro HTML ama loo design gareeyo waxyaabaha loo baahan yahay waxaa kamid ah waa doctype, HTML tag, heading tag, title iyo body. sharxaad waan usoo laaban doonaa. let us go and jump into our folder and design website-kii ugu horeeyay. sida dalka ku aragtaan waxaan haysanaa waa folder ay ku qoran maaragtay magaciisu uu yahay web design. gudihiisii baan galaynaa. waxaan haysanaa HTML course wixii file ama project wixii aan ka shaqeyn halkan baan ku dhex qori doonaa adoo la idmo. haddaba sidaa awgeed filekaasi right click baa taabanaysaa haddaad soo download gareysatay Visual Studio Code kadibna waad ku dul furaysaa. right click baa taabanay open with Visual Studio Code baad leedahay. sida dalka ku aragtaan Visual Studio Code-kiina wuu isfuray. sidan buu kuusoo qabanayaa welcome taasi baad iska xiraysaa. halkan aad imaanaysaa filekaaga adigoo ku guda jiro. fileka waa inuu sidaa ahaadaa amadaa waa inay hoos aadaa. sidaa awgeed haddaba halkaa waxaa laga sameeyaa waa file, halkan folder baa laga sameeya, halkaa waa iska refresh. haddaba sidaa awgeed anaga file baan sameynaynaa. filekiina wuxuu ahaa index.html kadibna sidaa baan leenahay. intaani baad qabanaysaa waad save garaynaysaa ama cancel kusoo laabo kadibna save garay. sidaa awgeed haddaba HTML markaa adiga Visual Studio Code hadaad isticmaalaysid doc taasi haddaad qortid informationkiiyo idil waad helaysaa sida dalka ku aragtid. intaasaad iska cancelaysaa. warbixintii anagaa u baahnayn sidaanaba ku haysanaaba. haddii aysan noqonna doctype-ka isagoo dhamaysan waxaad u baahan tahay calaamad tacajib baad isticmaalaysaa. calaamad tacajibkaas baad qoraysaa kadibna intaan waad iska cancelaysaa. haddaba sidaa awgeed okay qaybtaani dib baan ka fahmi doonaa. intaasi baan u baahannahay waa wixii nala weydiiyey si aad u qortid HTML. haddaba halkaa waxaan leenahay cinwaanka website. kuwa waan sharxi doonaa. sharaxaada dib baan ugu laabanaynaa. haddaba waxaan soo qaadanaynaa wax loo yaqaano h1. waxaan leenahay cinwaan. halkan waxaan soo qaadanaynaa p oo laga soo gaabiyey paragraph kadibna waxaan leenahay waxaan ahay paragraph. intaani save garee kadibna waxaan ku laabanaynaa waa folderkeenii oo waxaan leenahay halkaa fur. sida dalka ku aragtaan file baan haysanaa waxaana si automatic aan ugu dul furayna waa Firefox. sida dalka ku arki doontid cinwaan waxaan ahay paragraph. sidoo kale korkaa markaad eegtidna waxaad ku arki doontaa cinwaanka website-ka. siday la tahay basicgii waad fahanteen qaababka loo coding gareeyo HTML. haddaba aan ku laabano sharxaadeeni. waxaan ku guda jirnaaba qaybteeni sharxaadii waxaanagaan soo isticmaalnay. waxaan soo isticmaalnay wax loo yaqaano doctype, heading, HTML, head tag, title iyo body. tag wuxuu yahay waan fahmi doonaa laakiin hadda aan fahanno doctype wuxuu yahay. doctype wuxuu cadeynayaa documentiga nooca adiga aad isticmaalaysid. sidoo kale wuxuu cadeynayaa versionka ugu dambeeya inaad isticmaalaysid midkaas oo ah HTML5 ilan HTML 4.2.3.2.1 waxyaaba nooca bay soo martay laakiin hadda versionkii ugu dambeeyay waa HTML5. haddii adiga website-kaaga markaad coding gareynaysa haddaad ku xustid meesha codingka doctype taasi waxay cadeynaysaa markaa browserka inuu si fudud uu ku fahmayo waxa adiga aad isticmaalaysid. haddaba sidaa awgeed HTML tuna maxay tahay? HTML waa guud ahaan waxa aad adiga isticmaalaysid. okay HTML tagaasi waxay cadeynaysaa waa halka loo yaqaano cagtaadii hoose iyo timahaagii. intaasi baad u dhexaysaa. haddaba sidaa awgeed headingka muxuu yahay? headingka waa madaxii. qofka biniaadamka madax buu leeyahay marka laga soo tago timihii iyo cagihii. haddaba sidaa awgeed markaa waxaan leenahay headingka wuxuu qaabilaa ama uu xakameeyaa cinwaanka sida titleka aan ku aragnay meeshii aan kasoo muujinay cinwaankii. sidoo kale waa wuxuu xakameeyaa ama linkiyada ka dheeriga ah ee
html tusaale external css waxa loo yaqaanaa jiro ilan html sideedaba mideedii kale html ma shaqeyso css la-aan. css tu waa qurxinta, html kiina waa qalfoofkii. okay, bini aadamka lafa iyo jir buu leeyahay ama dhar iyo wax buu isku qurxiyaa, qurxintaasi baa loo yaqaanaa css ama luqada qurxinta. haddaba sidaa awgeed taasina waxaa loo yaqaanaa style sheet. okay, waa luqada qurxinta. haddaba sidaa awgeed aan sii gudagalno oo titleka muxuu yahay. titlekii waa meesha uu kasoo muuqdo magaca lagu baran karo, yani magaca lagu garan karo cinwaankaagii, yani website-kaagii nuuca uu yahay, wuxuu uu ku saabsan yahay, ama magaca website-ka. tusaalahaan haddii cinwaanka titleka aad ka dhigtid rajada bulshada, taas waxay caddaynaysaa website-kaasi inuu ku saabsan yahay website-ka qof kale inuu yahay, ama organization-ka ama association kale inuu yahay rajada bulshada. haddaba sidaa awgeed boodiga muxuu qabtaa? boodigu waa jirka qofka bini aadamka. waxaan dhani meesha html-ku waa salkii ilaa iyo timahaagii, caaradoodii ama korkoodii. haddaba sidaa awgeed headingkiina waa madaxii, titlekuna waa indhihii ama wixii meeshii lagu garanayay. haddaba sidaa awgeed boodiguna wuxuu noqonayaa waa jirkii. jirkuna waa halka dharka iyo waxyaabaha laga xirto ee wax walba laga soo muujiyo. haddaba sidaa awgeed waxaan leenahay waa jirka, waana meesha laga soo muujiyo wixii dheeriya iyo wax weliba adiga aad rabtid inaad ka soo muujisid html-kaaga. haddaba casharka ku xigana markaa waan sii gudageli doonaa. sidaa awgeed meeshaan baan kusii bixinaa sharaxaadana waad fahanteen sidaan rajeynaya. wixii su-aalahana commentiga hadduu alla idmo insha allah. sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.